marka mas'uuliyadda waa in laga helo qofka horta marka ugu horeysa Allah cabsi laga helo maxaa yeelay nin ulul amr ah oo hadana jaahil ah oo aan cilmi lahayn oo dadka ku tumanaayo runtii dhibaatadeeda waa dhibaato weyn oo soo koobi karin waay qabiil dhan oo beel jirta ah ayaa macnaha sumcadoodii iyo xuquuqdoodii iyo xaqeedii ayuu luminaya maxaa yeelay Allah ayaa laga magan galaa nin ulul amr ah oo Allah ka baqaynin shacabkan u naxariisanaynin mas'uuliyadda intaas la eg oo bulshada wax maanta la qaadi kara maaha ilaa maanta xilliga lagu jiro qofka bini'aadamka ayaa kaligiis uusan asig amalkiisa iyo dambigiisa uusan qaadi karin laakiin beel weyn oo dhacan oo dulman oo dawladda federaalka dulantay oo boonta tiri iyadoo macnaha beel weyn oo qoomiyad ah haddana mar labaad Hirshabeelle haddana dulantay shacabkiina ay dhibaataysan yihiin xuquuqdoodiina ay maqan tahay ninka maanta mas'uuliyaddaas dadkaas dhibaataysan qaadayo horta kaasaaba aan igin adagbo soo qaadi karin marka qofkaas waa qof Allah ka baqaynin marka haduu ka baqayo og yahay adduunyada korkeeda oo lagu xisaabtamayo ma buu isku taabteen mas'uuliyadaas marka maadaama rabbana la tusallid alayna man la yaqafana wala yarhamna innaka anta ghafurur rahim ilaahay oo anagu salidin qof ulul amr ah oo hadana shacabka u naxariisanaynin intu dulmiga goynaa badan waan soo dhaweynaynaa cid kasta oo makano musharax waxaan ka rabaa sida hadda ay bilaabeen adooga Ismaan Adeer uu bilaabay cid kalena cidii rabto ha is soo istaagto laakiin waxa muhiim ah mas'uuliyadda ugu weyn waa reer Hiiraan waa maanta meesha makana uu ku dhibtooday bulshadiisa isweelay inta badan waxa ku dhibtooday waa balad weyne oo deegaankii iyo dadkii aan marka ninka soo baxayo waa inuu balad weyne yimaada waa in inta macnaha laga diiwaan geliyaa waa nin meel loogu noqonayo haduu Ilaahay raali ka dhigo insha Allah hadan Ilaahay waxaan ku maadiyaa inay nabadoonadii ay joogaan afar makana nabadoon waxaan ku soo dhaweynaa marka nabadoon Indroy oo aan nabadoonkii reer Kuusane marka falyatafadal mashkuuran waan soo dhaweynaynaa cid walba way u furantahay barnaamijkaas waana bar bilow fiican